Soomaaliya oo 2 sano ku jirtay jahawareer siyaasadeed iyo mid amni ayaa waxa ay bari dooranaysaa madaxweynihii tobnaad waxaana jira guux iyo dareen xoog badan oo ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed waxaana shacabku isku raacsan yihiin intooda badan in dib loo doorto madaxweyne Farmaajo waxaana ka imaanaya muuqaaladan oo ay ku cabirayaan dareenkooda inkastoo aysan shacabku cod lahayn Farmaajana intii uu madaxweynaha ahaa uusan waqti gelin in shacabku wax doortaan sidoo kale dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in madaxweyne Farmaajo uu ka quustay inuu dib u soo laabto iyagoo ka tilmaan qaadanaya sidii guddoonka baarlamaanka ee labada aqal loogu jabiyay dadkii ay wadatay filla Soomaaliya oo taageero xad dhaaf ah ka helayay Farmaajo iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada kuwaas oo looga adkaaday dhammaan guddoonkii labada aqal waxaana markaas bilowday cidda qaadan karta xukunka dalka iyo halka ay aadi karaan xildhibaanada ugu badan ee Farmaajo ku jabiyay guddoonka baarlamaanka saadaashaas oo ilaa iyo hadda aan lahayn qof gaar ah oo loo tiriyo ayaa waxa ay muujinaysaa in dhowr musharax oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud, Siciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka mid yihiin musharaxiinta ugu cadcad ee la saadaalinayo inuu midkood qaadan doono xukunka dalka sidoo kale doorashada oo dhacaysa 15 May oo ku suntan maalin halgan iyo qarannimo ayay dadka Soomaaliyeed wada sugayaan hogaamiye dhiiran oo dalka ka saari kara jahawareerka iyo amni darrada iyo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagu si gaar ah ugu suntan 15 May oo ku suntan maalintii halganka dhalinyarada Soomaaliyeed daawadee sidee u aragtaa doorashada maanta ka dhacaysa dalka oo si weyn loo wada sugayo yaad si jeclaan lahayd in dalka loo doorto